in la dhaqo qofkan maradka oo jiradan ay ku dhacday oo kale fayudfanu almusaab ruuxa isaga waa la aasaya wayusalla calayhi waana lagu tukanayaa maxaa jira waxaa jira ad-daruuratu tubiihu al-mahdhuuraat. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta nagu xiran waxaan maanta barnaamijka ku soo qaadan doonaa qof u dhintay cudurka halista ah ee coronavirus noocee loo dhaqayaa. intaa ka hore waxaan ka codsanayaa daawade inaad subscribe saartid channelkan. mahadsanid. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaalahayow meel aad joogtaanba waa idin salaamay. maanta waxaan ka jawaabaynaa insha allahu tacaala su-aal maalmahan aada u badan taasoo ah cudurkan dilaaga ah ee coronavirus. ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ka wada badbaadiya meelaan joognaba. haddii qof uu ku dhaco muslima oo u dhinto see la yeelayaa? ma la dhaqayaa mise waa la iska aasayaa? marka masaladaas oo maalmahan aada su-aasheed u badan tahay meel walbana laga weydiin, aanan rajaynayo culimmadeenna soomaaliyeed ee waaweyn ilaahay khayr ha siiya inay ka wada hadlaan. haddii alla idmo baan rabaa inaan albaabkeeda waxoogaa sii furo. horta qofku markuu dhinto jumhuurul culamaa waxay isku wada waafaqsan yihiin in la dhaqaa inay tahay waajib, inay tahay faradkaasna waa kifaayi. waxaa la yidhaahdaa dadka qaar hadday la yimaadaan intii kalena dembiguu ka dhacayaa, laakiin bishardi waa inaan wax maanica oo diida in la dhaqo aynan meesha joogin. waxyaabaha maanica waxaa ka mida inuu qofku gubto oo kale oo biyihiiba uu qaban waayo. waxaa ka mida in cudurrada gudba oo kale sida cudurkan coronavirus oo kale uu qofka hayo oo loo baqayo qofkii dhaqayay inuu u gudbo cudurku. markaas culimmadu waxay yidhahdeen hadday suurageli weydo in la dhaqo waxaa imanaya in biyo lagu shuba keliyeeta oon waxba gacanta la marinin. hadday suurogeli weyda biyaha in lagu shubana waa loo tayamum baa loo samaynayaayoo tayamumku beddel wuxuu ka noqdaa isaguna biyihiibuu ka noqdaa. haddii intuba suurogeli waayaan culimmada qaar baa waxay leeyihin tayamumku masalada in la dhaqaayo waxay in la nadiifiyo qofka dhintay, laakiin haddii nadaafaddii ayna meesha joogin waxba tayamum la aadi maayo, waa la iska qofka intii la kanfo ayaa la iska aasayaa. haddaba mucaasiriinta ahlucilmiga qaarkood waxay ku tageen haddii ay suuragal noqon weydo in qofkii la dhaqo jirrooyinkan gudbaya dartood loona baqayo ruuxa isaga oo dhaqi lahaa loo baqaayo inay noqonayso in la iska aaso yusallaa calayhi waa lagu tukan min gayri guslin walaa tayamum. isagoo oon la dhaqin lana tayamumna la samaynin ayaa intii lagu tukado ayaa la aasayaa, iyadoo oo la qaadanayo ijraa'aad iyo wax alla wixii suuragal ahaa oo dadkii loo tababaray iyo dharkii loogu talagalay dadka waqaayiga ay qabi lahaayeen oo dhan la sameeyo. haddii adkeeyaan dadka khubarada ah oo atibada ah oo caafimaadka hawshan ku takhasusay inay khatar ay tahay in la dhaqo qofkan maradka oo jiradan ay ku dhacday oo kale fayudfanu almusaab ruuxa isaga waa la aasaya wayusalla calayhi waana lagu tukanayaa. maxaa jira waxaa jira ad-daruuratu tubiihu al-mahdhuuraat wad-daruuratu tuqaddaru biqadariha. shaygii xaaraanta ahaa haddii ay dhibaata ay timaado way banaa qofka in la dhaqaba waajib noqonaysa, laakiin haddii qofkii su-aashu waxay noqonaysaa kan nool in la badbaadiyo miyaa habboon mise kan dhintay in waajibkiisii la fuliyaba yaa imaanaysa. fattaqullaaha mastatactum, wixii intaad awoodaan alla ka baqa buu rabbi ina leeyahay. midda labaadna rasuulku wuxuu yidhi haddaan arrin idin amro wixii aad awoodaan kala imaada arrinka isagaa ee laydin amray. haddaba qofkan hadday arrintu sidaa u dhacdo walxaalatu haadihi waxaa lagu kaaftoomayaa in la kanfo maro uun lagu duubo kadibna lagu tukado kadibna la aaso. waa haddii ay caddeeyaan dadka ikhtisaaska umuurtan ku shaqa leh oo caafimaadkiihii taabashadiisa iyo dhaqiddiisuba inuu cudurkani u gudbaayo qofka kale oo hawshaan samayn lahaa. intaasaa lagu kaaftoomi. waxaa loo rajaynayaa dadka cudurkan coronavirus ku dhintaa insha allahu ee muslimiintiihii inay shuhada noqdaan. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa
inuu muslimiinta meelay joogaanba uu badbaadiyo jiradana inaga wada badbaadiyo wajazaakum allahu khayr وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.